ciidanka dib u xuraynta deegaanka oo ah dadka deegaanka oo is abaabulay oo garabsanaya ciidanka qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa goordhow waxa ay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka iyo Sooman oo kamid ah goobihii dhawaan ciidanka ay saraakiishu sheegeen in xeelad dagaal ay uga baxeen xilligan oo aan taaganahay deegaanka iyo Sooman waxa gacanta ku haya ciidanka dib u xuraynta iyo ciidanka dawladda oo isgarabsanaya saraakiisha iyo mas'uuliyiinta maamulka oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jati Cismaan dadka deegaanka ay la hadleen waxa ayna sheegeen in dib dambe ciidanka aysan u noqon doonin iyaga oo ugu baaqay in maamulka iyo saraakiisha iyo ciidanka amniga dadka deegaanka ay la shaqeeyaan iyo Sooman waxa ay kamid ahayd goobihii istiraatiijiyad ahaan ugu muhiimsaneed gacan ku haynta al-shabaab markii laga yimaado Booco iyo sidoo kale degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan iyo Sooman waxa ay hoos tagtaa degmada Buuloburda ee gobolka Hiiraan waxaana isaga kala goosha wadooyin afar xagal ah kuwaas oo muhiim u ah dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan hadba deegaankaas cid gacanta ku dhigta hadii ay ahaan lahaayeen dhinacyada al-shabaab ama dawladda federaalka iyo ciidanka deegaanka ee iskaashanaya ciidanka gacan ku haynta deegaanka iyo Sooman maanta mar kale dib u hantiyay waxa qayb ka ahaa ciidanka gorgor ee kamid ah ciidanka xooga dalka kuwaas oo watay gaadiid dagaal isla markaana ka yimid dhanka iyo gobolka Galgaduud ee dhaca bartamaha Soomaaliya diyaaradaha dagaalka ayaa sidoo kale qayb ka ahaa howlgalkii maanta lagu qabtay deegaanka iyo Sooman ee gobolka Hiiraan saraakiisha ciidanka qalabka sida ee ku sugan jiida hore ee dagaalka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgalka lagu qabtay iyo Sooman oo gogol xaar u yahay dib in mar kale gacan ku haynteeda iyana ay u soo noqoto degmada Moqokori ee bariga gobolka Hiiraan ciidan kamid ah ciidanka dib u xuraynta deegaanka ayaa iyana dhinaca kale waxay xilligan ay kaabiga ay ku hayaan degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan taas oo muddo maalin ka hor ah ciidanka dib u xuraynta deegaanka iyo ciidanka dawladda ay isaga soo baxeen dhanka degmada Buuloburda waxa ka soo ruqaansaday cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida kuwaas oo haatan ku sugan deegaano u dhaxeeya degmada Moqokori iyo sidoo kale deegaanka iyo Sooman dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ayaa ciidanka dib u xuraynta iyo sidoo kale ciidanka dawladda ay wadaan waxaana lagu wadaa in 48 saac ay soo aadan ciidanka dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ah ee isgarabsanaya ay markale dib u hantiyaan gacan ku haynta degmada Moqokori ee gobolka Hiiraan al-shabaab ayaa wax ka yar 24 saac waxa ay maamulayaan gacan ku haynta deegaanka iyo Sooman oo mar kale dib gacantooda looga faramuroojiyay iyada oo waliba wax dagaal ah deegaankaas uusan ka dhicin waa Maxamed Ibraahim Siyaad telefishinka caalamiga ah ee Kalsan deegaanka iyo Sooman gobolka